Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halka aad naga daawanaysaan waa Jana Galafoor Official. Haddaan ugu cusub tahay subscribe, like, share, comment intaba waa xaggiina. Walaalayaal, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa meeshan doona na gaarsiin kara ka sokoon walaalaheena Soomaaliyeed waa ay na gaarsiin karaan. Waayo subscribe aad taawato adna waxba kaama dhibeyso, anna waxay ii tahay dhiirigelin. Haddaba qof walba walaalkiisa isaa meel geyn kara ummadeena Soomaaliyeed, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka, like-ta, share-ta, wixii ra'yigaaga ahna commentiga aad nagala wadaagto. Halka aad weli iga daawanaysaanna waa Jana Galafoor Official oo dib u soo rogaal celiyey. Waxaanu ku kala maqneen sababo jira awgood. Haddana waxaan sameynaynaa inaan channelka ku soo laabanay. Caawa waxaan ka hadlaynaa mowduucii xalay aan ka hadlay ee murugada lahayd, ee tiiraanyada lahayd, ee gabar Soomaaliyeed oo 10 jir ah in la dilo, ee haddana meydkeedii gurigooda lagu qariyo. tii baan haddana daba taaganahay. Sida aan la socono waddankeena Soomaaliya dowlad baa ka jirto. Soomaalina waxay tiraahdaa dowlad xun dowlad la'aan ayay dhaantaa. Dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa gabadha yar ee marxuumadda ah ee sida foosh xun loo dilay inay cadaalad hesho. Laamaha amniga waxaan ka codsanaynaa gabadha miskiinta ah ee marxuumta ah ee gacan ka gardaran dishay sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo qabto. Allah subxaanahu wa ta'aalana qofkaasi ceebtiisii iyo dhiigii inuu soo qabto ayaan Ilaahay ka baryaynaa. Gabadha yareed waxaa loo dilay si fool xun, inta la xirxiray, la gowracay, sida hadda ay noo sheegayso hooyadeedna aan ka maqalnay, ee la kufsaday. Waana haddaad fiiriso waa mid sax ah, waayo sabab la'aan looma dilin. Qofka inuu kufsaday uu wuxuu iska dhaadhiciyey oo shaydaan ka dhaadhiciyey haddii mataqaanaaye ay noolaato way ku sheegaysaa. sidaa daraaddeed ayuu nafsadeedii u dhaafiyey. waa gabar yar oo 10 jir ah oo hadda soo kacayso ee adduunka rajo ka lahayd ayuu rajadeedii u beeliyey uu nafsadeediina dhaafiyey. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahayga ku soo qabto, dhiiggii aad gashay inuu ku soo qabto ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa. mideeda kale, waalidiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay ilmahooda ay ilaashadaan. waayo magaalada Muqdisho wax walbo waa ka suurtagalaan, wax walbo waa ka suurtoobaan. maanta hadday wax dhacaan oo beri dhacaan oo beri dama dhacaan, qaladkaas ma waxaa loo saameynaa ninka sababtaas geystay? qaladka waalidiinta xataa waxbay ku leeyihiin. waayo cunugan goortuu baxaayo, goortuu soo noqonayo waa inaa ogaataa. siiba hooyada waa inay ogaataa. waayo aabbaha waxaa laga yaabaa inuu biilkii u raadiyo, noloshoodii inuu la daalaa dhacayo, waardiyana kama geli kara caruurta. marka walaalayaal, waalidiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ilmaha Ilaahay uu inoo xafido, ilmihii ay xafitaan, ilmihii ay ilaashadaan. wax Ilaahay ka furtay ee shaydaan ah ayaa magaaladii ka buuxo. marka walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa waalidiinta Soomaaliyeed, Soomaaliyeed meel walba oo afka Soomaaliga looga hadlo, waxaan ka codsanayaa siiba magaalada Muqdisho. waalidiinta magaalada Muqdisho waa inay foojignaadaan, ilmahooda ilaashadaan. marxuumadana gabadhan yar waa gabar yar oo 10 jir ah, waxba ma aysan galabsanin. waa la dilay, inta la xirxiray, la isku jibiyey, qoortii laga gooyey ayaa digsiga lagu dhex riday. sidaa maqalkuna annaga ma joogin meesha uu falkaas ka dhacayna ma joogno. marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa ninka saa u galay arxan laabaha ah ee diin laabaha ah
inuu ilaahay subxaana wa tacaala soo qabto ayaan ilaah uga baryaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay u duceeya inuu ilaahay xaqeedii usoo dhiciyo wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halka aad naga daawanaysaanna waa Jana Galafoor Official haddaan nagu cusub tahayna subscribe like share comment intaba waa xaggiini cordon baana haddaan hore u soconnaa walaalayaal na sii socodsiiya marka waxaan idinka baryaynaa meesha maanta aan taagana inaad naga sii wadaan sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu